وكبحيو الشيخ سؤال شكل قف كين يسوي دي وحا وكل بلابي السلام عليكم شيخ شبلي دادية برامج كا مجعي وعبد النور وحان كشقيا ورشد دقاق لغو قالوا أما لغو برايا مركب مشينا يا لغو قراء كدب ضد مسلمين يا برايا هالك ساعة halkii qof waxa uu bireynaya ilaa 3 kun oo digaag marka dhamaantooda bisinka lagu ma bireeyo muxuu ahaa marka suurtagal ma noqon kartaa ayuu leeyahay qofkan in digaagii aan bisinka lagu wada bireyn inay muxuu ahaa xalaal noqdaan oo ay waajib wada noqdaan dhamaantooda bismillah alhamdulillah masaladu waa laba mas'alo isa saaran abqaadir masalana waa bisinka masalana waa mishiinka iyo biraynta masalada hore masaladan dambe mishiinka iyo biraynta waxaan u qaatay waxba qar ka soo siinaya kadibna qofkan ay soo martaa biraynaya haday sidaas tahay waxa shardi ah inay soo marto iyadoo nool mishiina ku soo dhufto ama korontaha soo dharbaaxdo biyo kulul la soo mariyo iyadoo nool haddii ay qofkii muslimka soo marto oo uu bireeyo mishiin uu taabanayo iyo mindi uu gacan ku haya kaydooni han noqotee xalaal way iyadoo bakti hadday soo martana dee bakti la bireeyey xalaal ma noqdo taasi masalada qaybta koobaad qaybta labaad waa bisinka qabashadiisu ma shardi baa gowraca si uu xalaal u noqdo waa masala khilaafiya intaana garanaya fuqahadeena shaafiiciyada raxmatullaahi calayhim waxay qabaan bisinku sunno weeye waajib ma aha bisin la'aanna haddiiba kas looga tagay asixi kas haddii looga tago ayayba asixi ani kaasaana sawaabka ila dhow markii aqwaasha la isbarbar dhigo culimo badan oo bisinka in la qabto waa sharti qabiya way jiraan dee dalaa'ilkeedii maxaa labada qoloba daliishadeen masala maanta taxriirinayno adiladii iyo jawaabihii aan la fagurayno maaha laakiin marka la isku soo gunaanado aniga waxaa ila xoog badan sida fuqahadeena shaafiiciyada ay qabaan raxmatullaahi calayhim bisinka qabashadiisu inay sunno tahay saa darteed hataa bisinka laga tago xaaraantinimoobi maayo haddii gowriciisidiisi kala shuruudda u dhammaystirmo isagoo nool uu soo maray oo la bireeyey intii la rabay in la gooyana la gooyo bilaahi towfiiq khayr allah ku siiyo